وحري وريه عبد الملك عوضون oo kamid ah saxafiyiinta sheekooyinkooda xoog ku saara arrimaha ku saabsan dhanka bini'aadanimada iyo in dadka loo gargaaro waxa lagu xiray garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa sababaha loo xiray lama sheegin balse waxa la tuunsan yahay sababahaasi in qayb ka tahay imaansho u yimid magaalada Muqdisho iyo warar sheegaya inuu ku lug lahaa arrinta ku saabsan ololada ama ololaha dhanka loogu jiray madaxtinimada dalka haddaba hooyadii Cabdi Maalik Cawdan hooyadii oo lagu magacaabo Faadmo Roble ayaan gabadha la hadlay waan weydiiyay sida ay soo gaartay sheekada ku saabsan wiilkeeda in ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku xireen airport-ka Hargeysa. maanta nimanaya sida markii uu yimi ayaa waxa la soo hadlay inaan walaaliyay warmarkii ay sii dhanteeyay inuu walaal airport-ka inta diyaarada noo soo fariisatay daqiiqado kadib dhaleen soo la qabta sababta loo qabtay ma ka warhaysaa والله السبب صار وقت ولما هو لكن أنا كاتب مقدسون تجسري وأنا سوينتري من بس دوك على مليون وأنا سوى معلم صدق هي وعالم صعودا كل ست وأنت أنا بس رسيان تسوى معلم استلمت بها نفس الجيران تجسري واحد له ومهيس سوينتري أنا ما كنت لأن كان أول حاجة في من فقدت من مهيس هكذا انت بختلت اليال انت حتى انت بختلت الشيء انت العميس ده يسمعوه مقرميسا waxaan ku weydiiyay waxa lagu eedeynayaa sida aan maqalnay in uu Muqdisho tagay uu ka qayb galay olole siyaasadeed arintaasi ma la socotay adigu ma siyaasadii anigu waxa sababta leeyahay warna kama hayo siyaasadda weligii muu gelin dowladda sababta ma laha maxay ninka ma sidoo taageeranayo ee farmaajo ninka uu taageerayo أصور تغيير العالم تقول لك تغيير تعرفوا منك إنت على لك يحصل لك احتجارين معين maamulka Soomaaliland iyo kan garoonka ma la hadashay oo si aad xog u weydiiso ما قد يجيش هذه المايه إذا صراحة أنا ما شفت من بين دولة صراحة إذا أنا ساعد اللي أنت تقول لي شيء أنا ساعد فيها بدأت حيثها وقدتين أو أنا ساعد أسأل الله والله ورتب ورتب لا يبدأ المخرج هي ولا تستوي هايستان هايستان أنا في التسوي إياه إلا كذا إيه ده تسلو هايستان فورتوا مشكلة إلا إن كمرت يرجع لقصة شيء كذا ورثين تلويري سوى هيكذبك أيكوس عالم والله كان هذا wiilkaagu dabcan wuxuu caan ka yahay baraha bulshada iyo warbaahinta sida aad sheegtana wuxuu ku jiraa olole dadka loogu kaalmeeyo sidoo kalena de aragtidiisu way caddahay marka la eego sida uu wax u tabiyo marka aragtidiisa adigu sidoo arkaysay sanadihii dambe iyo sida uu bulshada dhexdeeda ku ahaa sidoo u fahmaysay waxaan arkay deemin dhalinyaro oo maniga u komxeysay inta ay soo farqaad oo wax faraya oo dadka sida kaalmeynaya oo Soomaalida maxay la garab taagan oo aan isagu maxay wax siyaasada iyo wax dawladda mid la ku jirin oo isagu maxay dalkiisa lagu gudbiyay dadka kaalmeynta islaamka على هذا الثاني تكتبك من جرب تعلم ما تعلم أنا جرب أريد بعيني يرجع لما تعرف تكتب فقط ثم جرب يسرع حتى لو يرجع بعيني شيء فكانت نفسه إنك تبدأ الواقع سيء وضع يعبنا هذا qatar misdhehe wiilkaaga waa la kulmi karaa markaad eegto sida uu shaqeynayay iyo imaashiisa Muqdisho iyo sidaas ma dareemaysaa in qatar uu kala kulmi doono aakhirka anigu isma ahayn dhibaata la kulmaya sababtoo ah qof faataan siyaasad ku jirin qof faataan qof maxay finaanka shaqeynayahay qof faataan dowlad mid ma wax ka sheegin taariikh isma ahayn nin Soomaaliyeed dhalinyaro oo fikrada leh oo dadka shaqeynaya oo dadka silsilay oo dadka maxay haysay bikay وقت عوارته هيسير سريع وقلسنا يعرفوا عن بدأ كان يدري إذا جميل وكلكم يساعد هاي المناسبة طبعا وقال جارته ولا جارته عادي يا جارته ما أي قرما الحر مركة لا إذا مركة بيعرف إن الحر بتتفصل واقرته تقرأت اللي يسأل حتى يسأل يا جارة يريد ولما الله هذا الشيء مركة حكومة ده لا إنه ما يحرق واحد إذا ما يراد عبد الملك محيب الله حره والله أنا وقت سمع قال لك تسعة دابر عبالي واقرتي dadka qaar waxay hadal hayaan in madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ay kulmeen taageero u muujiyay arrinkaas wax loo xiri karo ma tahay
وحاول هذا ما يقدر يسوي حاجة يدير يسوي كم سنة وفي تسوي لسه بيجي haye وكم ساعة ما يقولون تعال بلا واحد بالشارع هذا ولا هذا كمان تبي المجرد si wanaagsan وحاول الرأي دي اللي بتقدم حاجة هو ما يسوي شيء aragtidaada marka in ra'yigiisaas uu dhibto madaxweynaha Soomaaliya taageer sida u aragtaa adiga كاسم ولا بسرعة كاسم ولا بسرعة xaaladiisa bal ma ka war doontay oo caawa sidii xaalka Cabdimaalik حالك عند مالك عاصمة وهي ما تربط الواحد كم صارين أروسم ولا ولا إن شاء الله عدونا يصدقوا وقت أروسم بعدارة يا يرجع ما درس شيء بدوره شيء بدوره يعني كلام ma jiray tuhun ah haddii Hargeysa uu ku laabtay in la xiri doono horay ma u qabay tuhunkaas إن مثلا ولا حين الدعاء لا نحن سواء كان مثلا مقدسين كان سواء إذا ما حين سوي waa gartay إنك أنت أسمعت مثلا يدنا مريض ولا حوالها تتاجرين haye xukuumadda Soomaaliland maxay baad leedahay ugu dambeyn بس الجرائم دي بين الكلام ودول وتابعين كلام جرائم وحر ينبغي قسم قرصة ينبغي قسم تكون كرسة بس الله يجرم ما لكن يرتبط بدولة